سلام الله عليكم يوتيوب channel ka aad naga daawanaysaan waa Arab Soomaali official daawadayaasheena ku soo dhawaada muuqaal cusub mawduucana maanta waxaan ku soo qaadan doonaa afar ka mid ah wadamada ugu sigaar cabista badan dunida nambarka koobaad waxaa ku jira jasiiradda Kiribati ayaa ah dalka ugu sigaar cabista badan dunida saddex jibaar ragga dalkaasi ayaa caba sigaarka sidoo kale haween ka badan saddex jibaar dumarka ku nool jasiiradaas ayaa caba sigaarka dadka ku nool dalkaas ayaa gaaraya 103 milyan oo qof sigaarka ayaana laga canshuuraa dalkaas taas oo u sahli karta qofka inuu si sahlan ku helo sigaarka nambarka labaad waxaa ku jira Montenegro dalkan oo ku yaala bariga Yurub ayay ku nool yihiin dadka ugu badan Yurub ee caba sigaarka taasi oo dhan 46% dadka ku nool dalkan ayaa gaaraya 633 milyan oo qof 4124 xabo oo sigaar ah ayuu qofkiiba cabaa sanadkii iyadoo laga mamnuucay dadka dalkani inay ku cabaan sigaarka goobaha ay dadku isugu yimaadaan ayay haddana si xor ah ugu cabaan goobaha shaqada maqaayadaha iyo meelaha laga raaco gawaarida nambarka saddexaad waxaa ku jira Giriiga dalka Giriiga ayaa ah dalka saddexaad ee ugu sigaar cabista badan adduunka kala bar dadka ku nool Giriiga ayaa caba sigaarka 35% ka mid ah dumarka dalkaas ayaa caba sigaarka nambarka afaraad ahna kan ugu dambeeya barnaamijkeena maanta ayaa ah Russia dalka Ruushka ku dhawaad 60% ragga ku nool dalkan kana weyn 15 sano ayaa caba sigaarka sidoo kale 23% haweenka dalkan ayaa caba sigaarka dalkan ayaa si aad ah looga xayeysiiyaa sigaarka taas oo ka saacidi karta dadka dalkani inay cabaan sigaarka suuqyada lagu iibiyo sigaarka gudaha dalkan ayaa lagu qiyaasaa qiimo dhan 22 milyan oo dollar waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena mahadsanid